marmar baa shabaagta dhan laga kacaya laga jaraya inaad ku qarqanto marmar bay u dhowdahay. waa Maxamed Ismaaciil Xasan 73 jir caariga xeebta ku kabkabanaya qalabkii uu ku kalluumaysan lahaa in ka badan kala bar cimrigiisa ayaa noloshiisa iyo midda qoyskiisu ku tiirsanaayeen waxa ugu soo dhaca shabagan oo maalin walba biyaha badda dhex dhigo. waxaan ahay nin kalluumaysata daadayda maanta 73 waay laakiin 43 sano waxaan ka shaqaynayay badda xilligan la joogo iyo xilliga horeetana baddu isku mid ma ah. xilligii uu bilaabay inuu ka shaqaysto baddan khayraadku ceegaagay waxa uu ku shaqaysan jiray qalab gaboobay oo waagiisii casri ahaa haddase tiknoolajiyadu bedeshay. bahalaya huwaari bahalaya lagu kalluumaysan jiray huwaaridii marka waxa weeye hadda waa waqtigooda waa guuray waxa kan marka baa ka dambeeyay laashashkaas ka dambeeyay siximadaas ka dambeeyay aakhir dambeeta waxa la keenay kuwaasi waa kuwa iskaashitooyinka waagi muxuu ahaayay siyaad bare wadanka haystay uu keenay laashkaas siximadaha doonyaas waagaas marka anagu dan wadaagta meesha soo ka sameeyay meesha la yiraahdo garacadi halka ka sameeyay dan wadaagta anagu ma haysan mana shaqayn mana lahayn. wax soo saarka laga helo biyahan buluugan ayaa kala duwan afarta xilli ee uu sanadku ka kooban yahay waxaana jira xilliyo aan la hawaysan badda. waxay soo martaa afar xilli waa awalka marka la yiraahdo dirac baa la yiraahdaa baddu waa iska hebi waa fadhida waa warka xagaa laga soo baxo markii 3 bilood bay socotaa 3 shuur bay qaadataa 3 shuur waxa ku xiga waqti la yiraahdo nusuurkan oo hadda aan ku jirno baa ku xiga waxa ku sii xiga xilli la dirac oo 3 bilood iyaduna ah 12 bilood ya bay u qaybsantaa afar bay u qaybsamaan ilaa anagu waag warta waxa oran jirnay xilliyada badda ya xilliyada badda ama xilliyada cimilada ama adduunyadu waa fi sayf wa shitaa xilli qababe iyo xilli kuleel oran jirnay ma ogtahay laakiin ma aha maanta waxa weey afarta xilliba xilli walba waqtigiisa buu dhacaaya adoo ku jira badda arkaysa badda iska kacday ya maxaa kicinaya isbedelka ku dhacay badda kicinaysa. waqtiga haatan la joogo iyo xilliyadii hore ayuu Maxamed rumaysan yahay in isbedel ku yimi badda kaas oo sababay in mararka qaar uu faramarnaan kala soo laabto badda caqabadaha hor yaal isaga iyo ragga la midka ah waxa uu u arkaa mid uusan iska horleexin karin. saximadaas 3 jeer baa jiriif qalabkeeda qaatay qalabkan shabaagaha ya 3 jeer buu qaatay 3 jeer uu qaatay jiriifka hadee meel aan u cararno anagu ma haysano cida uu dacwoono ma lihin wax naga qabta ma jirto ma fahamto anoo saabiya oo qalabka iga maqan yahay oo saximadiyo faaruqa aw shabaagaha badalaad faaruqa baa xeebta igu timi waxa la yiri baaba qalabkii waxaan qalay jiriif baan maray kow saximadiyo faaruqa xeebta igu timi wallahi waa tiraba 3 jeer codsi mooyaane waxaan anigu horta qaban karnaa ma jiraan baaba iska yariin minaanu adduunyada qaylino oo la dhawaaqno aan wartalo waryaa muslimay oo dawladda haday tahay iyo haday dad kale yihiinba annaga waana la haystaa hana la soo gurmado inaan niraano ma ahine annagu waxaan ka qaban karnaa ba iska yar sababta waxa weeye maxaa wax ku qabataa baalka xunka waa taawiriga amal kale taa hada halka u dhaqaaqdo ya nin baasha baaleg ya daartan ka garsan baaleg ama maraakiib muxuu ka araga marka masaajidka la leeg oo aan bacid ba ka arkayno mid walba intuu qod galo iyadii guurayso soconaysa baa ku iimaanaysa dar ilaahay hanoo ku soo gurmado xaaladdu waxay naga taagantahay maanta inaanu ya ka fariisano hada waaba ka fadhinaaba banaana saa ugu fadhino shabaag walka u yaalin oo saximada dhulka u yaalin ba naga dhaba. wax soo saarka badda ayaa ka mid ah waxyaabaha Soomaalidu ku tiirsan tahay ayna ku nool yihiin qoysas badan oo kan Maxamed Xasan ka mid yahay waxayse u baahan yihiin in laga taageero waxyaabaha aysan tabarta u hayn. Maxamed Ibraahim Geelle degmada Murcanyo.